xaaskaa dhibaatayn mar dambe cabdimaaligow meel fiican baad bulshada ugu jirtaa oo qaaliya walaalkaygaa tahay hadalkaygaas yuu ku mudine inta wanaagsan ka qaado anigu siyaasi meehi cabdimaalig adiguna siyaasi ma tihi adigu samafalaa tahay aniguna fanaan baan ahaa walaalow qof waliba waxa fiican shaqadiisa inuu ka ekaado waxaan kaa codsanayaa in badan baa xaaskaaga iyo hooyo jeel taagnaayeen rabadaanta qasiidada ugu talagalay sidaa darteed baan u soo qaaday tahriibka iyo waxyaabaha dadka dhibayoo dhan waan jeclahay inaan ka soo hadlo soo tuuro marka wixii wacyigelina way wanaagsan tahay ama daf ha lahaadeen ama bilaa codba ha noqdeen inantaa u kaca inantaa anfac dhibaatada ku dhacday aad baan uga xumahay iyo nimankaa dhibaatada ay u geysteen inantaa magteedii iyo xaqeedii inantaa waa la cudur qabyaaladi waa cadowga qarannimo iyo camalka shaydaan bulshadana colaad iyo cuqdad kala fogeysiyo cunfi bay ku beertaa daawud hadda garabkii waxa taagan Maxamed Saciid BK oo ka soo qayb galay afoodarada magaalada Hargeysa lagu qabtay BK ugu horreyn ku soo dhaweynaya ciid wanaagsan walaal ciid mubaarak alxamdulillahi rabbil caalamiin ugu horreyn ilaahay baa mahad iska leh ilaahay nimcadii iyo barwaaqadii rabadaantay quruxda badnayd inuu soo gabagabeeyay ilaahay naga aqbalo bulshaweynta Soomaaliyeedna daawanaysana waxa leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciidkan ciidkeeda bashbashiyo barwaaqaha inagu gaarsiiyo islaamka ka ciiday caalamka iftiinka ka muuqda guudkooda quruxda baa ilaahay agtiisa qaaliya ciid mubaarak baan leeyahay intii magacayga iyo muuqayga garanaysa waa ku dhow xisaab aad iyo aad buu maasantay BK rabadaantan horaantii soo qaaday qasiido muusubad way waxa dad badan baa ka filciliyay bal adiga ka waran horta bulshada waan salaamaynaa waddankan aynu ku noolahay reer Somaliland waa dad suugaanta aad u yaqaana suugaan bay wax ku fahmaan marka rabadaanta qasiidada ugu talagalay sidaa darteed baan u soo qaaday tahriibka iyo waxyaabaha dadka dhibayoo dhan waan jeclahay inaan ka soo hadlo soo tuuro marka wixii wacyigelina way wanaagsan tahay ama daf ha lahaadeen ama bilaa codba ha noqdeen marka qasiidadana dad badan baa ka shaqeeyey aadna waan ugu mahadnaqayaa halka kan aynu joogno caawa waa furwadare waxaan u mahadnaqayaa ugu horreyn horta ilaahay barlabaadka raggii dhallinyarada ee isxilqaamay waa Xuseen Biito waa sida kale haddaan idinku sheego waa odaygii nasteexayno halkan aan ka salaamaya dumashiday cilmi oo nin aad u wanaagsana warmahay dhalinyaradii VIP da reer Hargeysa wacyigelintan ay sameeyeen ay isugu keeneen labayntii reer Somaliland saaxiibad baan idinku ambalyeynaya wax fiican baa qabateen gobolladana gaarsiiya bartaa ka wada jir bay ku fiican tahay noloshu reer Somaliland waxa leeyahay ka fogaada qabyaalada ka fogaada oo fariimaha ay namadu idin wadaan iyo wacyigelintana waxaan leeyahay qaata si kale haddaan idinku sheego maasayran akhriya inta badan jirta oo dadku suugaan bay wax ku fahmaan reer Somaliland mid markaan u kala qaado waa cudur qabyaaladi waa cadowga qarannimo iyo camalka shaydaan bulshadana colaad iyo cuqdad kala fogeysiyo cunfi bay ku beertaa cimrigood dhammaanay dad yow caam ahaantiin cindigiina ka tirtira caqli yeesha oo kora caqiidada islaamkiiyo qarannimo ku caanbaxa waa cudur qabyaaladi waa dhaqanka caamada cilmi kaan lahayn iyo qof cawaani weheshado ummadii cisaysana cillad qurxumaan iyo kala cabasho mooye nabad iyo caloolsami kuma wada caweeyaan aad u dhageysta hadalkayga malaadii markuu muusiga saaran yahay jeceshiin bal midhahana dhageysta oo hadal badan aan oran lahaaba intaasi koob sanaysa de waan ku faraxsanayaa furwadareerta quruxda badan ka soo qabay horta xalay kilib yar baan soo duubay TikTok-gaygaan soo dhigay halka baraha bulshada ka isticmaalo TikTok-ga page yar iyo TikTok yar baan leeyahay yar walaalkay haya waan argagaxay muuqaalka markaan arkay bariyahan dambena wax inagu soo badanaya oo anigu aad baan uga xumaaday ummadda Soomaaliyeed waa maalin ciid ah kilibka mar horena waan duubay inantaa u kaca inantaa anfac dhibaatada ku dhacday aad baan uga xumahay iyo nimankaa dhibaatada ay u geysteen inantaa magteedii iyo xaqeedii inantaa waa la dulmiyey
dadka sharciga yaqaana meeshay arrintu ka dhacday waa Nairobi baan u malaynayaa waa inay u kacdaan ummadda Soomaaliyeed ciddii dibtaagiisina waa in gacan lagu qabtaa waa in la ashkateeyaa waa inaanay gabdho badan oo Soomaaliyeed bay arrintani aad ugu dhacday marka waxaan leeyahay inantaa u kaca hadday hanti tahay hadday inantaa waa la dhibaateeyey walaashay halkan aan fariin u marinaya mid horena waan u duubay adiguna iska samir waad heli sadkaaga gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay bal isku duubnaado oo isu kaca bariyahan waxay nagu soo baxday kufsigii waa ku maji nagu noqday markaa sidaa darteed waxaan idin leeyahay dee inantaa u kaca wax kastoo la dulmiyana ka hortaga cabdimaalig muuse cabdoon oo samafalaa wariye ah ayaa sheegay inuu magaalada Burco ka baxay arrimaha amni awgeed kelmadaada weydiisay cabdimaalig muuse cabdoon waa maalin ciid ah walaalkay in badan baa isagoo xidhan aan halkan baaq uga diray isagoo xidhan oo aan madaxweynayaasha hore ka codsaday maanta walaalkay talo yaroo gaaban baan siinay walaal horta waxaan ku leeyahay ciid mubaarak walaalow waddanku waa waddankaagii qarannimadaada jamhuuriyadda Somaliland waa meel aad u fiican waa meesha aynu magaca iyo masabka ku yeelannay bulshadeeda qadiyadeeda iyo calankooda iyo intaba ixtiraam waa marka ugu horeysa mar labaadka anigu siyaasi ma ihi cabdimaalig adiguna siyaasi ma tihi adigu samafalaa tahay aniguna fanaan baan ahaa walaalow qof waliba waxa fiican shaqadiisa inuu ka ekaado waxaan kaa codsanayaa in badan baa xaaskaaga iyo hooyo jeel taagnaayeen walaalow xukuumaddan cusub ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahina waan u hambalyeynaya waa xukuumad aad u fiican isaga iyo Cabdiraxmaan isaga iyo Maxamed Cali oo Cabdi madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda waxaan leeyahay wadad aad u wanaagsan marka waxaan leeyahay in cabdimaaligow walaalow samafalkaagii waad ku fiicnayd samafalka inoo wad arrintaas siyaasadda iyo arrintaana walaal waa talayga nasteexma hayga xumaanin walaalkaa baan ahay markii horeba halkan marka jeelka lagu xidho waan ka hadli jiray aniga oo fariinta uu ku soo mari jiray taana waa mid farxadeed aan ku soo mariyay cafis weydiiso haddii khalad kaa dhacay waa madaxweynahaagii waa xukuumaddaadii soo noqo Burco halkii inooga wad samafalkii iyo hawshii iyo wixiiba aadna waan kuu salaamayaa mar dambe ha ka oohin hooyo xaaskaa dhibaatayn mar dambe cabdimaaligow meel fiican baad bulshada ugu jirtaa oo qaaliya walaalkaygaad tahay hadalkaygaas yuu ku mudine inta wanaagsan ka qaado